أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي maanta mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay bisha Ramadaan ee laga faa'iideysto oo khayrkeeda in badan lagu dadaalo sidii qofku ugu heli lahaa janno iyo mowduuca aan ka hadlaynay intaas ku saabsan yahay maanta. Nabiga sallallahu alayhi wasallam bishan waxay diraasayn jireen Jibriil Quraanka oo bisha Ramadaan aad iyo aad nabigu ugu dadaali jiray Quraanka soo akhrinayo ama akhriskiisa ama fahankiisaba ku tadabburi jiray aad iyo aad. culimadu waxay sheegaan qofka muslimka waxa looga baahan yahay inuu xifdo sidoo fahmi lahaa Quraanka ama ugu tadabburi lahaa kitaabka Ilaahay u fahmi lahaa. bishan oo kale Nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka wuxuu ku tartasiin jiray inta badan inay akhriyaan oo Quraanka ku dadaalaan oo akhriskiyaan. bal ka waran hadduu madaxweynaha dalka ama wasaaraha dalka ku soo diro warqad oo maalin walba warqadaas ay ka hadlayso noloshaada iyo xayaatadaada oo aad fahmayn dib intee leeg ayaa dareemaysaa maxaa lagu fahmayaa markaa inaad tahay indiraabul caqli ayaa lagu fahmayaa. taas oo kale waxaa ka mid ah kitaabkeena Quraanka dadkeena inta badan ma fahmayaan tafsiirkiisana kuma dadaalaan mana akhristaan. Sheekh Cabdikariin xafidahullah maalin walba wuxuu ka dhigaa online-kan ku jirno kelmad uu ku soo jeedinayo tafsiirka Quraanka oo kaga hadlayo ayuu maalin walba kaga hadlaa inteena badanna kama faa'iideysano. marka Quraanka inaan ku tadabburno oo macnihiisa fahno aad iyo aad ayay muhiim u tahay. waxaa kaloo meesha ku jira inaan fahno Quraan iska daaye Faatixadii aan maalin walba akhriyayno ayaan fahankeedii inagu adkaaday inaan fahno. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tukaday masaajidka waxaa ku soo daba tukaday saxaabigaasna wuxuu si nabiga ku xiro nabigu wuxuu akhriyay Faatixada markuu dhameeyay wuxuu bilaabay suuratu Baqara markuu bilaabay haddana wuxuu ku tukanay ilaa 100 aayad meelaha soo akhrin doona. wuu sii waday suuratu Al-Imraan buu ku xijiyay haddana wuu sii waday suuratu Nisaa buu ku xijiyay hal ragcad kaliya. taas waxay ku tusaysaa markaa nabigu siduu Quraanka ugu dadaalayay ama akhriskiisa. waxaa kaloo ku jira taas oo muhiimadeeda aan ka sii arkaynaa aayad kasta oo soo maro ilaa hadday cadaab ay sheegto Ilaahay uu ka magangelayay hadday janno sheegtana Ilaahay ayuu weydiisanayay hadday istighfaar ku sugan tahayna Ilaahay buu istighfaarta weydiisanayay inuu Ilaahay u dambi dhaafo. inagu Quraan la iska akhrinayo holob ma aha. masaajidadana waxa arkaysaa masaajidada kamid ah hadii ay ku yeelaan imaam kamid ah juz ayuu ku tujinayay masaajidkaas muxuu sameeyaa juz Quraan u akhriyaa. marka Quraankii inuu inagu adkaaday oo dhibaato badan xageena ay ka jirto ama uu iimaankeenu daciifsan yahay ayaa inoo muuqatay in fara badan dadkeena kamid ah. marka sida in bishan uga faa'iideysan lahayn ama midheeda u goosan lahayn waxaa muhiim ah inaan ku dadaalno Quraanka. Imaam Maalik oo garanaysan xadiiska nabiga inuu soo xidhan jiray inuu dhigo bishan oo kale culumta uu joojin jiray xadiiska wuxuuna bilaabi jiray sidoo Quraanka u akhrinayo. Imaam Shaafici waxay ka sheegaan asagana inuu bishan akhri jiray 60 jeer dhameyn jiray Quraanka oo sidoo ugu dadaalayo ay ka muuqato. culimadu sheegaan Quraanka akhrintiisu inay fadli dheeraad laga helayo oo Ilaahay hadalkiisa aad ku tadabburayso akhriyaysi. dadka inta badan markay akhrinayaan Quraanka waxay ka fikiraan wax kale ma hayna wax kale ka fikirtay Ilaahay baad la hadlaysaa oo Ilaahay Quraankiisa u fiirsataa oo ku dadaasho akhrido wuxuu leeyahay markay dheeraada iyo waxaad ka helaysaa aad iyo aad fara badan. jannadana waxyaalaha lagu kasbado ayuu ka mid yahay Quraanku. maalinta qiyaamana si ku doodaya ama hadda dayacdina si ku doodaya. mowduuceena maanta intaas ayuu daaranaa aan ku soo gabagabaynaynaa.
النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن